Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhawaada Daryeel Kitchen waa hoyga cunto macaan oo aadna u fudud waxaan maanta idiin wadaa buskud aan ukun lahayn oona aad u macaan badan ilmahana ay aad u jecel yihiin marka u horeyso haddii aad nagu cusub tahay iloobin subscribe buttonka notification buttonkana taabo saad ula socoto mar walba videoga soo geliyo marka u horeyso waxaad u baahan tahay batar aan cusbo lahayn orange yar oo la miiray waxaad u baahan tahay burka nooca khamiirka lahayn iyo midka khamiirka leh midkaa doonto oranjiga la xoqay cusbo yar iyo baking soda ma ahan baking powder waa baking soda iyo waxaad u baahan tahay chocolate yar oo jarjaran ama midka caadiga jarjari kartaa marka u horeyso batarka dhalaali microwave-ka ilaa adiga few seconds kadib waxaan ku dareynaa mid kaleetana waxaa maanta buskudkan aan sameynayno wax mashiin uma baahno labadaas qori ayaan ku qasayaa so stepka u horeeya sokorti ku shub waxaa sameynaysaa isku walaaq intaas ilaa 2 ilaa 3 daqiiqo uma baahna wax kaleeto buskudkan waa buskud aad maaragtay u dhaqsi ah intii aad qasaysana foornada sii kululeyso waxaan ku dareynaa qolofka oranjiga oo la xoqay waxaan ku dareynaa vanilla yar iyo waxaan kaloo ku dareynaa oranjigii aan miiray oranjigana waa half aan miiray iyo half qolofkeeda isku walaaq intaas waxaa sameynaysaa isku dar alaabta qalalan oo dhan waxaa sameynaysaa cusbada yareed ku dar baking soda ku dar kadib isku qas intaas sidaan u sameynayaan waxaa waa inaan waxna kala hiloobin labadaas baaquli aan waxan ku diyaarsado marka insha Allah sababta aan labada burba aad u isticmaali kartin anaa idin sharaxayo marka hadda waxaa haysanaa sokortii carafistidii wixii dhan oo isku dhalaalsan waxaa sameynaysaa marka burka half ku dar kadib qas kadibna halfka kale lagu darayaa sababtaasaan u yeelayaan waa inay wixii si fiican isku dhexgalaan haddaa burka dhan baaquliga aad ku gedisid waxaa laga yaabaa waxyaalo qalalan inay maaragtay meelaha galaan ama uu si fiican isku dhexgelin marka always markaa wax sameynaysid isku day inaa ama aday stage wax walba u sameysid marka insha Allah saas oo la socda kadib had insha Allah intaan isku walaaqaya the rest waan ku daraa hadii Ilaahay yiraahdo marka hadda buskudka aad dubaya waxaan isticmaalay burka aan khamiirka lahayn wuxuuna ku siinayaa burka khamiirka lahayn buskud aad u jilicsan oo maaragtay aad u macaan badan buskudka oo aad isticmaasho burka khamiirka lahayn wuxuu ku siinayaa buskud asna aad u macaan gudaha ka jilicsan laakiin korka xoogoo yarka yara adag marka haddaa rabtid noocaas saas u duban kartaa haddaad rabtidna waxaa isticmaali kartaa burka aan khamiirka lahayn ani labada buskudba waa dubay labadan waxay kusoo baxeen si fiican qofna xitaa ma dareemin inaan ku dubay bur khamiir leh laakiin hadda waxaa idinku tusinayaa burka aan khamiirka lahayn si ay wax walba badanaa dadkana way haystaan burka aan khamiirka lahayn marka hadda insha Allah waa isku daray wixii dhan haddana waxaan ku dareynaa chocolate-ka noocaan oo kaleeto asoo diyaarsanaa jiro haddaadan haysan waxaa sameyn kartaa chocolate-ka caadiga soo gad jarjar waxaa ku dari kartaa nuts ama loos ama adiga waxaad doonto ay ku darsan kartaa saan markuu yahay marka waa buskud aad u fudud oona maaragtay haddii aad haysato ilmo allergy qaba ama adiga ay ukunta ku dhibayso waa buskud aad sameysan karto haddana insha Allah waxaa noo dhiman inaan buskudkii aan diyaarino oon maaragtay kuskus ka dhigno waxaan isticmaalayaa bahasha qaadada jalaatada lagu qaato kadib waxaa sameynaysaa gacmahaadoo nadiif ah maxaa la dhahaa sidii waxaa sameynaysaa banooni yar ka dhig adiga haddaa rabto qaada caadina isticmaali karta oo labada waa idin tusaya kadib saasa ku wadeesha insha Allah waxaa laga yaabaa inaad isweydiiso sababta buskudka saan loogu kuuskuusayo because saan hadda buskud waxaa lagu yaqaanaa buskud fidsan maadaama aan ku darnay baking soda ama bicarbonate soda buskudka markaad ku darto kaas wuu kala bixinaya markaa foornada gelisa buskud waxaa kusoo baxayo aad maaragtay kala baxay oo isla ekaaday isaga dhan marka sidaan kuskuuskan waxba ka murgin saas kuskuus waan arkaysa insha Allah foornada markaan ka soo saaro laakiin waxa saan ka dhigayo waa baking soda marka ha hilmaamin baking powder-na ma ahan baking powder waxaa lagu yaqaanaa doorshada markii lagu daro kore u kicisaa baking soda waxaa lagu yaqaanaa inay wax kala ballaariso badanaa hadda baking soda waxaa lagu daraa buskudyada marmarna baking soda waxaa loo isticmaalaa labadaba hadda doorshooyinka qaar baking powder waa lagu daraa baking soda waa lagu daraa si ay isku kaalmeysato
Mida kaleeto oo aad u muhiimna buskudka kala dheedheere oo aad iskugu dhadhaweyn si hodhow markuu kala baxo ayna iskugu dhegdhegin. Haddana waxaa sameynayaa maadaama aan chocolate hore ugu daray korkan waa ka saaraya si uu buskudku u noqdo buskud quruxsan oo badanaa hadda buskudka waxaa loo yaqaanaa chocolate chip oo chocolate-kii maaragtay jibsi ahaan ay kor kaga saaran tahay. Saana waa un wax yar oo qurxin ah laakiin maadaama aad ku darto uma baahno. Laakiin adiga haddaad jeceshahay waa sameyn kartaa, haddaadan rabin waa iska dhaafi kartaa. Xitaa haddaadan rabin chocolate la'aan ama loos la'aan ayaad saan ku dubi kartaa. Marka haddan insha Allah waxaa sameynayaa buskudkii mid kasii yar. Koowdii hore waxaan idinku tusay qaadada oo jalaatada lagu guro. Haddana qaadada caadiga halfkeeda aan ku sameynayo insha Allah. Sidii aan kuskuusaya, sidii haddana chocolate kor ugu saaraya. Marka buskudka waa buskud aad u fudud oona macaan badan. Waxaan ku daray oranjiga qolofkeeda iyo oranjiga biyaheeda iyo miiray. Haddii maxaa la dhahaa haddaadan rabin waa iska dhaafi kartaa laakiin waxay sameynaysaa buskudka caraf aad u caraf badan oo maaragtay ka duwan buskudyada kaleeta u sameynaysaa. Marka insha Allah haddana foornada gelinaya. Foornada markaa gelisina waa kana waan ka soo saaray. Buskudku wuxuu ku jiraaday 180 degrees ilaa 6 ilaa 8 daqiiqo. Buskudkana markaa soo saartay marka uu horeyso wuu jilicsan yahay. Waxaa sameynaysaa hore ha ka qaadin ha yaalo meeshiisa ilaa adiga 5 daqiiqo kaleeto. Markuu qabo buskudku maxay adiga markaa soo saaraysa oo buskud xogo yar ceeriin ah laakiin intuu meesha saaran yahay kuleelkaas yar maxay ahayd buskudkii dhameystira adiga marka hore ha ka qaadin xogo dhig kadib markaa qaadi waxaa arkaysaa buskud jilicsan oona ma aragtay aad u qurux badan oo u jeedaan waxaa u maleynaysaa inay warshad soo sameysay laakiin anaga sameynay. Marka insha Allah waa buskud fudud hana waxba ma aha isdheehin ukun kuma jirto. Waa buskud aan hadda ukun lahayn haddana aad u quruxsan oo maanta hadii la is ardayga mid ukun laga sameeyay iyo mid ukun la'aan ah xitaa lama kala dareemayo. Midabkana u jeedaa waa midab quruxsan. Marka ku dadaal temperature-ka ama xaraarada foornada inaadan aad u dheereynin 180 degrees ka dhig laakiin waxa ku dheereyn adi ilaa 6 ilaa 8 daqiiqo. Badanaa waxaa sameeyay 6 ayaa gaarsiiya kadib waa fiiriya haddana 2 daqiiqo ku dara. Marka buskud adi foornooyinkan isku mid ma ahan bururkan isku mid ma ahan laakiin always isku day inaadan aad u karin. Haddaad aad u kulis buskud wuxuu noqonaa qarjac dhahayo. Taasna ma xumo haddaad rabto laakiin buskudka hadda sameynayno waxaa rabnaa inuu noqdo buskud jilicsan oo asiga dhan ma aragtay aad u dhalaalaya marka la cunayo ma aragtay masha Allah. Marka waa kaas insha Allah haddana waxaa idin tusaaya isla buskudkii aan sameynay waxaa sameyn kartaa maadaama hadda buskudkan uu badan yahay waxaa sameyn kartaa freezer-ka gelin kartaa qaybta talaagada oo barafka. Marka waxaa sameeyay buskudkii adiga shape ahaan yara waxaa ka dhigaysaa sidii rooti camal isku duuduub kadib warqadan aan ku duuduubayo waxay sameynaysaa iskuma dhagaayo hodhoodii barafka markii la geliyana si fudud ugu soo bixin kartaa. Marka saas oo duuduubaysa talaagada geli adiga wallaahi aniga mar 2 week 3 week igu jiraa markasta adiga markuu qofku soo socdo ama marti waa soo saaraysa. Hadda talaagadii aan ka soo saaray waxaa dhigaysaa banaanka adiga ilaa 20 daqiiqo si xogo yar uu yara jilco kadibna waa jarjareynaa. Intaad ma aragtay banaanka soo dhigatidna foornada sii shido foornadii ku kulul adi buskudkaada 20 daqiiqo gudahood buskud waxaa helaysaa masha Allah waana kaasa marka hadda markaa jarjarayo waa dareemaysaan xogo yar uu yara adag yahay waana dhib ma lahan waa loogu talagalay insha Allah. Markaa jarjaraysan waxaa la jarjaraysaa si in yar oo fartaada la eg oo isla eg si hodhoodii buskudkii uu ma aragtay isku mar u bislaado. Marka badanaa buskudkana maxaa la dhahaa talaagada inuu kugu jiro waxay kaga fiican tahay ay ugu fiican tahay mar waxaa laga yaabaa inay marti ku imaado adoon filaynin ama in adiga naftigaada aad rabtid maanta inaad buskud samaystid oodan ma aragtay waqtigaas weyn ahaynin markaad talaagada aska gashatid isla markaa waa soo bixisay inta foornada kululeynaysid buskudkaada already waa diyaar waa jarjaray foornada geline adiga ilaa 9 daqiiqo gudahood ilaa 10 daqiiqo buskud waxaa haysataa kaala arago masha Allah oodna ogtahay waxa kasta ku dartay. Marka haddana waa kana buskudkii foornada ay geliyo gudaha foornada ku jiro midabkii weli ma bislaanin. Haddana waa ka soo saaray buskudkan waxaa dubay 9 daqiiqo saacada u qabtay waana kaasa wuxuu waa midab fiican weli marka foornada ka soo saaray xogo yar waa sugay inuu wax yar adkaado kadibna haddana waa kaas insha Allah
buskudkeena waa diyaar. Marka waxaan rajeynayaa inaad videogan ka heshay. Haddii aad ka heshay ha ilmaamin inaad like button-ka noo taabato, subscribe-na saar si aad ula socoto video kasta aan soo geliyo. Haddii aad su'aal qabtana hoosta igu soo qor insha Allah anaan kasoo jawaabi doono. Intaas la kulmi doono. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.